bilowga filimka waxaa arkayna dhul doog ah oo ay buuro ku wareegsan yihiin waxaa ku nool qoys yar oo dinosauro ah waana nooca loo yaqaan tarbasoor wiilkan yar oo lagu magacaabo junior weli waa ilmo yar waxa uu baranayaa ugaarsiga laakiin mar uu watay ugaarsiga ayuu ka daba ordaa si uu u cuno bahal laakiin junior waa uu kufay wuxuuna ku dhacayaa dhulka halkaas ayuu ku dhiman lahaa haddii uusan aabihiisa imaan lahayn si uu badbaadiyo kadib markuu cadowga jebiyo spectalos wuxuu uu canaantay wiilkiisa sababtoo ah waa uu ka cararay wuxuuna ku yidhaahdaa adigu waxaad tahay ceebta qoyska spectalos wuxuu doonayaa inuu wiilkiisa baro sida uu u noqon lahaa boqorka mustaqbalka ee dhulkan qabsan lahaa markaasay arkayaan koox dinosauro kale ah oo la yiraahdo barooto oo biyo ka cabaya webiga agtiisa labadooduba waxay diyaarinayaan dagar si ay u ugaarsadaan spectalos ayaa orday si uu eriyo halka junior uu meel kale istaagay si uu ugaarsiga u hareereeyo laakiin marka barooto soo dhawaadaan junior wuu baqay wuxuuna ku dhacay biyaha markaasuu qaylinayaa isagoo caawinaa dalbanaya markaas aabihiis ayaa usoo gurmaday laakiin spectalos wuxuu arkayaa in biyo yar ay ahaayeen oo haddii junior istaago uusan cabsi ka qabin inuu quuso spectalos wuu ka xumaaday wuuna iska tegay juniorna wuxuu isku qariyey gudaha geed duleel ah junior aad buu u murugooday wuuna niyad jabayaa sababtoo ah ma buuxin karo rajooyinkii aabihiis isagoo ooyaya ayuu soo xasuustay maalintii uu hooyadiis waayey markuu yaraa ayuu galay badda si uu u dabaasho laakiin hir ayaa qaaday isagoon garanaynin ayuu galay badda wuxuuna bilaabay inuu quuso markaas ayay hooyadiis u booday si ay u badbaadiso nasiib wanaag hooyadiis waxay keentay xeebta laakiinse hooyadii ma aysan badbaadin oo ay dhimatay tan iyo maalintaas junior mar walba wuxuu soo xasuustaa hooyadiis halka spectalosna aad ayuu u tabay sababtoo ah keligii ayuu la haray korinta wiilkiisa dhinaca kale waxaa arkayna junior aabihiisa oo raadinaya wiilkiisa junior sidoo kale waxaa arkaynaa shay cirka ka soo dhacaya junior aad buu uga cabsaday qaraxa spectalosna wuxuu leeyahay waa in aan raadsanno meel cusub oo aan ku noolaano junior wuxuu ku dhahay waxaan jeclaan lahaa inaan halkan weligay ku noolaado aabihiisna wuxuu ugu jawaabay haddii aad sidaas samayso waad badbaadi doontaa laakiin ma arki doontid waxyaabaha quruxda badan ee adduunka yaala ugu dambayntii spectalos wuxuu leeyahay waxba igama gelin waxa dhacaya mar walbana uu u taagnaan doono in uu wiilkiisa difaaco uuna badbaadiyo dhibaatooyinka subaxdii dambe junior wuxuu soo toosay isagoo go'aansaday in uu aabihiis ku faano isagoo rabo in uu biyo cabo ayaa waxa uu arkayaa xayawaan wuxuuna bilaabayaa in uu weeraro laakiin xayawaankan waxaa la yidhaahda cephalosaurus wuxuuna bilaabayaa in uu ka cararo junior markaas kadibna koox kale oo dinosauro ah ayaa u yimid junior waxayna bilaabeen in ay qabtaan markaas ayuu junior qayliyey isagoo aabihiis u yeeraya spectalosna si degdeg ah ayuu u soo orday si uu u caawiyo wiilkiisa markay dinosaurada arkaan tarbasauruska weyn ee soo socda waxay bilaabeen inay junior la cararaan spectalos wuxuu isku dayayaa inuu gaaro laakiinse dinosauradu waa kuwa dheereeya oo si fudud ayay uga carareen meesha laakiin laba ka mid ah ayaa dib u soo noqday si ay spectalos u weeraraan marka uu soo maray buundada wuxuu ku dhacay webiga kadibna wuu suuxay laakiinse si dhaqso ah ayuu u soo toosay sababtoo ah wuxuu soo xasuustay inuu u baahan yahay inuu badbaadiyo wiilkiisa laakiin markuu ugu dambayn gaaro xeebta dinosauradu waxay horay u kaxaysanayaan junior dhinaca kale spectalos waxa uu ku guulaysanayaa in uu ka soo baxo webiga laakiin nasiib xumo waxa uu weynayaa dinosauradii oo waa ay qarsoomeen markaasna spectalos wuxuu isku dayayaa inuu raaco urta wiilkiisa isagoo ka eegaya raadadkii cadowga laakiinse roob ayaa daay oo tirtiray dhammaan raadadkii junior markuu soo tooso junior waxa uu arkay asagoo joogo meel uusan garanaynin oo dhagaxyo ku wareegsan yihiin cabsi ayuu dareemay si lama filaan ah waxaa hareeraha ka soo wada baxaya carruur dinosauro ah oo badan markaas ayaa mid ka mid ah dinosaurada oo magaciisu yahay slash u soo dhowaaday si uu u cabsi geliyo wuuna handaday laakiinse blue ayaa soo muuqatay si ay u difaacdo junior blue waxay tuurtay dinosaurkii waxayna u sheegtay inuu sii daayo ilmaha yar markaasna waxaa imaanaya baaldi asagoo u sheegaya in ay joojiyaan dagaalka isla markaas dinosaurkii weynaa ayaa soo laabtay dhammaan dinosauradii yaraa way kala carareen blue waxay riixday junior si uu isku qariyo laakiinse dhammaan carruurtii kale ayaa hareeraynaya ka hor inta aysan gelin godadka keliya baalse iyo slash ayaa si wanaagsan isku qariyey dinosaurada waxay doorteen dhowr carruur ah si ay ugu kaxaystaan casho ahaan waxayna ku amreen inay raacaan markay dinosaurada ay ka tagaan blue waxay u sheegtay in dhammaan carruurtii la qaatay aysan weligood soo noqonaynin dhinaca kale spectalos wuxuu ku socdaa meel lama degaan ah isagoo raadinaya wiilkiisa laakiin haraad dartiisa wuu suuxay inkasta oo aanu si fiican wax u arkin spy oo ah dinosaur nooc kale ah wuxuu leeyahay ur aad u fiican markuu spectalos u dhowaado oo uu uriyo wuxuu mooday inuu yahay cadowgiisii wuxuuna bilaabay spy in uu weeraro laakiinse wuu kufay wuuna dhacaa isagoo tacbaan ah wuxuu mooday inuu dhimanayo laakiinse wuu la yaabay markuu ogaado in dinosaurku uusan cadowgiisa aanu ahayn spectalos wuxuu weydiiyey sababta uu weeraray markaas ayuu spy u sheegayay in dinosaurada lagu magacaabo tarbasaurus uu afduubtay saaxiibtiisii ugu dhoweyd oo la yidhaahdo dc spy iyo dc waxay isbarteen markay labadooduba carruurta ahaayeen tan iyo markii la afduubtay dc spy iyo saaxiibtiis weligood dib iskuma aysan arag markuu sidaas maqlo spectalos wuxuu fahmay in spy uu ka hadlayo isla kooxdii wiilkiisa afduubtay markaas ayuu weydiistay spy inuu caawiyo si ay u wada raadinayaan maadaama ay isku meel u socdaan spy uu ogolaaday maadaama uu fursad u helay inuu u aargudo saaxiibtiisa dc dhinaca kale junior oo weli nool ayaa isku dayaya inuu meel ku dhuunto si uu uga badbaado raptoriska laakiin godadkii kale carruurta dinosaurada ahaa way diidaan inay ku qaabilaan markaas ayuu arkay god cidlo ah oo ur iyo wasakh ka buuxaan duusti oo ah dinosaur yar oo tarbasauriska ah ayaa keliya degan godkaas waayo raptoriska weligood meelaha urta badan kama raadiyaan cunto markay blue timaado
dinaasorka yar way iska qarisay. Blue waxay weydiisay Junior sababta uu ugu dhow yahay wasaqdaas. Juniorna wuxuu ku dhahay waa inaan iskariyaa ilaa aabahay uu iiga yimaado. Dhinaca kale Spectalos iyo Spy waa ay socdaan iyagoo u socda buur dabka leh. Markay marayeen meel god weyn ah waxaa si lama filaan ah u soo weeraray dib kaloo aad u weyn oo sun kaga mudaya dabada. Nasiib wanaag Spy dhaawac ma gaarin sababtoo ah jirkiisu uu adag yahay. Laakiin Spectalos ayaa ku dhawaa inuu ka gudbo godka markuu maqlo qaylada saaxiibkiis. Markaas ayuu dib ugu soo laabtay si uu badbaadiyo. Wuxuu la dagaalamay mid ka mid ah dib kaloocyada oo uu lugaha ka gooyay ugu dambeyntiina waa uu dilay. Kadib markay ka baxaan godkaas Spectalos wuu dhacay sababtoo ah lugtiisa waxaa ka galay sun wuxuuna noqday mid tacbaan ah. Sunta waxay ku faaftay jidhkiisa oo dhan. Laakiin Spectalos wuu is adkeeyay sababtoo ah waxa uu rabaa in uu wiilkiisa uu soo badbaadiyo. Spy wuxuu ku leeyahay fadlan yara naso. Laakiin Spectaloska wuxuu ugu jawaabay haddii aan nasto waqti ayaan luminayaa. Waxay socdeen saacado iyadoo aan wax cunto ah ama biyo ah jirin ilaa Spectalos suuxo. Markaas ayaa ciidii hoos u gashay waxayna ku dhaceen god kale. Spy isna wuu suuxay markuu soo tooso wuxuu arkayaa wax halis ah oo soo socdo. Xayawaankii ayuu arkayaa isagoo soo ordaya laakiin Spectalos ayaa istaagay si uu u difaaco saaxiibkiis. Intii ay dagaalamayeen xayawaanka weyn ayaa tuuray Spectalos. Markaas ayay Fangi timid oo waxay isweydiinaysaa sababta loo weeraray. Fangi waxay isticmaashay geedo caafimaad ah si ay sunta uga saarto jidhka Spectalos una badbaadiso noloshiisa. Fangi waxay u soo jeedisay in ay Spy cunto ahaan u cunto sababtoo ah Spectalos wuu liitaa waxa uuna u baahan yahay cunto. Laakiin Spectalos wuxuu ku dhahay waa saaxiibkay. Markaas Fangi waa ay iska daysay. Intaas kadib waxay u sheegtay in ay raadinayso gabadheeda oo Raptoriska ka afduubteen 2 toddobaad ka hor. Dhinaca kale gudaha xabsiga ay Raptoriska ku hayaan carruurta dinosaurada ah waxay u qaybiyaan cunto carruurta si ay u caafimaad qabaan marka la cunayo. Duusti ayaa ah tan ugu daciifsan. Markay gaajootay ayaa daal dartiis godkeedii urayay ku noqotay. Duusti si lama filaan ah waxay aragtay Junior oo u keenay cunto. Labadooduba si wada jir ah ayay u cuneen. Blue ayaa iyadana ku soo biirtay waxayna dhammaantood cunayaan cuntadaas agtaala buurta qashinka. Markay dhameeyaan Blue waxay baraysaa asxaabteeda cusub inay dhagaxyo ku tuuraan si ay isaga difaacaan cadowgooda. Duusti isku daygeedii ugu horreeyay way ku guul daraystay. Junior isna markiiba isku dayay laakiin dabadiisa ayuu si xun ugu dhufanayaa dhagax weyn wuuna dhaawacmay. Si lama filaan ah mid ka mid ah Raptoriska ayaa u yimid wuxuuna ku amrayaa Duusti inay raacdo. Blue waxay isku dayday inay ka hortagto laakiin Baldi ayaa celinaya sababtoo ah waxba lagama qaban karo. Markaas ayaa Spy soo muuqatay. Habeenkaas Junior wuxuu ku riyooday maalintii uu karka u saarnaa inuu quuso isagoo ooyaya oo hooyadii caawin ka dalbanaya. Laakiin riyadiisa gudaheeda wuxuu arkaya Duusti oo iyaduna ooyeysa iyadoo saaxiibteed caawimaad weydiisanaysa. Maalintaas markuu Dasunga yimaado si uu u xado cuntada Junior ayaa qabtay oo u ballan qaaday inuu siiyo dhammaan cuntadiisa haddii uu u sheego war muhiim ah. Xayawaankaas wuxuu u sheegayaa in dhagxaanta ka dambeeya ay jirto buur dab ah. Gudaha buurtaasna uu ku kacay bahal dab ka samaysan. Waqtigaas bahalku wuu xirnaa laakiin haddii dabku xoog yeesho bahalkuna wuu xoogaysanayaa. Dinaasorada Raptorisyadu waa uun adoomo cunto u geeya 3 ilmood ee bahalka kuwaas oo foolxumo iyo cabsi leh sida aabahood. Markuu tan maqlo Junior wuxuu ka xumaanayaa inuusan badbaadin saaxiibtiis Duusti wuxuuna go'aansaday inuu ka qayb qaato qorshe ay ku baxsanayaan. Slash wuu baqay mana doonayo inuu la dagaalamo Raptoriska si ay u baxsadaan. Wuxuu ku hanjabayay inuu Junior dilaayo isagoo ku tilmaamaya fulay. Laakiin Baldi ayaa joojiyay oo amar ku siiyay Slash inuu iska daayo Junior. Dhinaca kale Spectalos iyo asxaabtiisa markii ay saacado badan socdeen oo ay saxaraha marayeen waxay ugu dambeyn heleen haro biyo waxayna bilabayaan in ay ka cabaan si ay awood ugu helaan safarkooda. Intii ay cabayeen biyaha waxay arkeen qoys la dhaho Barajos oo la weerarayo. Koox Carnotaurus la dhaho ayaa ukunta ka xadaya qoyskaas. Markay maqleen qaylada hooyooyinka Fangi ayaa go'aansatay inay caawiso oo ay weerarto cadowga. Kadib markuu Spectalos soo ceshado ukunta wuxuu dib ugu celinayaa hooyadii lahayd taasoo aad ugu mahad celinaysa. Carnotauruskii waxay hareereeyeen Fangi oo dhulka ayay ku tuureen laakiin Spectalos ayaa imaanaya si uu u badbaadiyo saaxiibtiis oo uu uga eriyo cadowga. Spy isaguna dagaalka ayuu soo galay wuxuuna ku garaacay dabadiisa xoogga leh. Markay ogaadaan in laga badan yahay Carnotaurusku way baxsadeen. Kooxda Juniorkuna waxay daawanayaan ilmaha Barajos oo dhalanaya. Daqiiqada kadib waxay sii wateen safarkoodii. Halka dhinaca kale uu Juniorna wuxuu sii qorsheynayay sidii uu baxsan lahaa. Wuxuu arkay in markasta ay joogaan 3 waardiye oo ilaalo ah meelaha laga baxo. Baldi ayaa la wadaagay qorshe uu ku sheegay mid aan la fashilin karin inuu yahay. Habeenkii waxay sugayeen calaamad uu Dasunga siiyo. Markii uu lacagtiisii helo Dasunga wuxuu u sheegay in mid ka mid ah waardiyaasha uu hurdaayo. Markaas Junior wuxuu isku dayayaa inuu mashquuliyo waardiyaha labaad. Ka hor intaan Junior la qabanin Blue ayaa Rabbitotiska dhagax madaxa ugu garaacay wuuna suuxay. Kadib Baldi ayaa toogtay waardiyaha labaad. Juniorna wuxuu isticmaalay cunto si uu ugu soo jiido waardiyaha ugu dambeeya. Laakiin markan Blue wuu dhumayaa waxaana ku dhow yahay in Junior la cuno. Laakiin Baldi ayaa si degdeg ah buuraha u fuulaya oo Rabbitotiska soo ridaya. Daqiiqada kadib Blue ayaa la soo gaaraya waxayna 3 saaxiib si wada jir ah uga baxsadeen xabsigii. Laakiin waxayna filaynin in banaanka ay ku sugayeen 3 waardiye kale. Waxaa khiyaanay Slash oo ciidamada cadowga u sheegay qorshihii baxsiga. Laakiin taa waxba kama bedelin go'aankooda. Subaxdii Spy wuxuu dareemay ur muujinaya in uu u dhow yahay meesha ay Raptoriska ku dhuumanayaan. 3 saaxiib waxay maqleen qaylo ka imaanaysa Dinosaur ciqaab loo marsiinayo inuu ku caawiyay carruurta inay baxsadaan. Spy wuxuu u adeegsanayaa jirkiisa dabin ahaan si Raptorisku uga daba yimaadaan. Dasungana wuu ka faa'iideysanayaa fursadda oo uu baxsaday. Raptoriskii waxay eryanayaan Ankylosaurus
Tyrannosauruskii wayna hareereeyeen laakiin markay waqti yar haayeen Tarbosaurus ayaa imaanaya oo qabanaya mid ka mid ah Raptoriska markii la wareystay Spectalos wuxuu ogaaday halka xabsigu ku yaalo wuxuuna u ogolaaday Spy inuu go'aansado waxa lagu sameyn lahaa xayawaankaas ugu dambeyn Ankylosaurus wuxuu u arguday saaxiibkiistii isagoo Raptoriska ku riday god weyn oo dhagax ah isagoo isticmaalaya dabadiisa markii ay sii socdeen iyaga oo maraya dooxada dhulgariirku uu sii xoogaysanayaa sababtoo ah foolkaanaha ayaa qarxa waxay isku dayeen inay dhagxaanta ka fogaadaan laakiin wadadii baa ka xirmaysa Fang iyo Spectalos waxay isku dayeen inay dhagxaanta ka saaraan jidka balse way awoodi waayeen si lama filaan ah koox baraajis ah baa yimid iyagoo lugahooda waaweyn ku burburinaya dhagxaantii jidkiina waa furmay waxay taas u sameeyeen mahadcelin ahaan maadaama saddexdan dinosaur ay dhawaan ku caawiyeen sidii ay ukuntooda u badbaadin lahaayeen hadda caqabada xigta waa dinosaurada Raptoriska oo aad u fara badan oo ku sugan dhinaca kale Tarbosaurus wuxuu adeegsaday ilkihiisa afka dheer si uu uga qaniino qoorta cadowgiisa kuna tuuro meel fog halka Spy uu dabadiisa ku weerarayo dinosaurada Raptoriska markii ay arkeen in banaanku yahay mid ammaan ah baalde wuxuu u cararay xabsiga si uu uga dibo kuwii kale kadibna wuxuu u baxay inuu badbaadiyo saaxiibadiis markii ay dhalinyaradii dinosaurada ahaayeen ay baxsadeen dhulgariir ayaa sababay in dhagxaanta ay furmaan dad badanna halkaas bay ku hareen Fang iyo Spectalos waxay ku qaylinayaan magacyada wiilashooda laakiin wiilashii waxay u leexdeen jid kale qorshahooda wuxuu yahay inay webiga ka gudbaan ayna galaan godka si ay u raadiyaan saaxiibtooda duusti laakiin Slash ayaa soo gaaray baalde wuxuu saaxiibadiis ku amray inay sii socdaan isaga oo ka ballan qaaday inuu ku soo biiri doono laakiin Slash ma imaan kaligiis laba Raptoris ah baa la socota baalde wuxuu ka adkaaday mid kaasoo ku dhigay dabada Slash si aanu u dhicin labadooduba waxay ku dhaceen lafaada Slashna wuxuu is-celinayaa hadda waxaa haray hal Raptoris wuxuu baalde ka dhigay mid aan dhaqaaqi karin isagoo doonaya inuu cuno laakiin Blue iyo Junior ayaa ku soo laabtay si ay u badbaadiyaan waxay weerareen Raptoriskii oo dhulka ayay ku dhaceen laakiinse Raptoriska wuxuu ku dhigay dabada saaxiibkiis Slash ma awoodo inuu culayska wada celiyo cidiyihiisana dhagaxii way ka go'een dhammaantoodna waxay ku dhaceen lafaada markii jidku furmo waxay ku socdeen webiga Spectalos ayaa arkay wuxuuna u yeerayaa saaxiibadiis inay raacaan markii Junior soo gaaro biyaha wuxuu dareemayaa cabsi wuuna istaagay laakiin wuxuu soo xasuustay hadalkii aabihiis wuxuuna go'aansaday inuusan mar dambe cabsanin inkastoo uu cabsanayo dinosauradii biyaha ayay ku boodeen waxayna ka daba quuseen si ay godka u galaan markay biyaha hoostooda ku jireen Blue neef ma heli karto sidaas darteed Junior baa caawinaya marka ay si wada jir ah u shaqeeyaan waxay gaarayaan meesha ay u socdeen si lama filaan ah waxay arkeen lafaha dinosauro dhulka daadsan waxayna maqleen makhluuq soo socda waxay dareemayaan farxad markay ogaadeen in makhluuqaasi yahay duusti oo muddo iskarinayay si uu u noolaado kadibna saddex makhluuq oo waaweyn baa soo baxaya duustina wuxuu u sheegayaa inay yihiin caruurta bahalka caruurtii waaweynaa waxay bilaabeen inay dabagalaan laakiin waalidiintooda ayaa markaas yimid si ay u badbaadiyaan Blue aad bay ugu faraxday markay hooyadeed aragtay Spectalosna wuxuu arkay Junior oo ka ordaya bahal weyn Tarbosaurus wuxuu u orday bahalka si uu u weeraro kadibna wuxuu wiilkiisa ku canaantay isagoo leh inuu wajaho bahalada halkii uu ka ordi lahaa markuu Junior taas maqlo wuu ka tagay maadaama uusan rabin in mar kale loo sheego inuu yahay fulay Blue waxay u timid Spectalos waxayna u sheegtay in Junior uu u socday badbaadinta duusti sidaas darteed inuusan fulay ahayn isla markaas bahal weyn ayaa yimid oo wuxuu bilaabay inuu dabagalo kooxda yar Spy wuu ka haray laakiin wuxuu mar kale la midoobayaa saaxiibadiis si ay uga badbaadaan bahalkaas waxay isku qariyeen jeex dhagax ah Spectalosna wuxuu rabay inuu baxo si uu wiilkiisa u raadiyo Fang iyo Spy waxay isku dayeen inay celinayaan duusti waxay aragtay in bahalkii oo baxay markaas Spectalos wuu soo baxay oo wuxuu arkay Junior oo isku dayaya inuu bahalka mashquuliyo si aabihiis iyo saaxiibadiis u baxsadaan markaas ayuu si degdeg ah ugu ordayaa inuu wiilkiisa badbaadiyo Fangina wuxuu ka daba tagay Spy wuxuu hayaa hawl muhiim ah waa inuu ilmo yaryarka meel ammaan ah geeyo laakiin caruurtii waxay go'aansadeen inay tagaan si ay saaxiibkood u caawiyaan Spectalos iyo Fangi waxay weerareen bahalka halka Junior uu isku dayayo inuu ka baxsado bahalada markaas ayaa Blue iyo baalde imaanaya si ay u badbaadiyaan Junior waxayna dhagxaan ku tuureen bahaladii yara oo ay dileen markii ay arkaan waalidkood oo la dilayo saddexda bahal ee mataanaha ah waxay isu yimaadeen si ay u mashquuliyaan cadowga bahalkii weyna wuu dabagalay laakiin dhulgariir ayaa keenaya in buurtii ay burburto bahalkii weyna dhagaxaan ayaa dul saarmaya markii ugu dambeysay ee uu weerar sameeyay bahalku wuxuu Junior ku tuuray meel fog wuxuuna ku dhacay dhagax isagoo miyir beelay markuu Spectalos arko wiilkiisa oo miyir la wuxuu noqonayaa mid niyad jabsan wuxuu isku dayayaa inuu kiciyo wuxuuna bilaabay inuu ka baqo in wiilkiisa uu dhintay Spectalos wuxuu cafis weydiisanayaa wiilkiisa wuxuuna ka baryayaa inuu soo tooso isla markaas buurtii foolkaanaha ayaa soo dhawaatay mana jiraan meel kale oo ay dinosauradu u cararaan saaxiibadii Junior waxay isugu tageen agtiisa waxayna isku dayayaan inay kiciyaan markaas duusti ayaa ogaanaya in uu weli neefsanayo markuu Junior soo tooso aabihiis Spectalos wuxuu ugu hambalyeynayaa geesinimadiisa wuxuuna leeyahay aad ayaan kuugu faanayaa hadda way wada carari karaan laakiin waxay ogaanayaan in albaabkii ay ka baxsan lahaayeen uu xirmay oo dhagaxaan ku daboolan yahay markaas kooxda oo dhan waxay isku dayayaan inay derbiga jebiyaan si ay uga baxsadaan laakiin way ku guuldareysteen intaa waxaa dheer bahalkii weynaa ayaa mar kale soo kacaya isagoo jirkiisa uu dab ku daboolan yahay markii Spectalos arko bahalka weyn oo soo socdo fikrad ayaa ku soo dhacaysa wuxuuna dadka ku amrayaa inay ka fogaadaan isaga ayaa jirkiisa u adeegsanaya inuu noqdo bahalka uu ujeedo isagoo iska dhigay inuu cunto u noqonayo markii bahalku isku dayo inuu cuno Spectalos si dhaqso ah ugu soo booday
boodaya taasina waxay sababtay in bahalkii derbiga dhagaxa ahaa uu jebiyo taas oo noqotay marin ay dhammaan dinosooradii uga baxsadaan daqiiqada yar kadib markay meel fog gaaraan foolkaanihii ayaa qarxaya dhammaantood waxay neefsanayaan neef farxad leh waayo way badbaadeen xilligaas Spy wuxuu la macsalaamaynayaa saaxiibadiis si uu ugu laabto dinosooradii qabiilkiisa ahaa Spectalosna wuxuu ugu mahadceliyey dhammaan caawimaadiisii wuxuuna leeyahay adiga la'aanta ma aan heli lahayn wiilkayga ugu dambayn carruurtii dinosoorada waxay si xor ah ugu ciyaarayaan dhul cagaaran